السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن oo wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamij cusub barnaamijkan maanta waxaan uga hadli doonaa ama kusoo qaadan doonaa arrimihii ugu dambeeyay gobolka Karnataka iyo arrintii maalmahanba ee social media qabsatay gobolkan Karnataka waxa uu ku yaalaa ama dhaca dhanka koonfur galbeed ee dalkaasi Hindiya waana gobolka lixaad ee ugu weyn gobolada dalka Hindiya guud ahaan gobolkan caasimadiisu waa Bengaluru waxaana inta badan loogu yeeraa caasimada tiknoolajiyadda inta badan Hindiya waxyaabaha soo saarka ay samayso ama productska ay inta badan soo saarto dhanka tiknoolajiyadda waxa la sheegaa in ay gobolkaasi ka soo baxdo inteeda badan marka warbaahinta caalamka ama guud ahaan caalamka maalmihii ugu dambeeyay waxa si aad u xoogan u soo shaabaxay arrinta gabadhan muslimada ah Muskan Khan oo arrinteedu runtii warbaahinta caalamku aad u qaada dhigeen arrinta gabadhan Muskan Khan dabcan waa gabar ardayada oo wax ka barata tuushinada dalka Hindiya gaar ahaan gobolkan Karnataka waana arrintan waxa ka kiciyay ama keenay oo adkeysan waaga ficilada guracan ay ku dhaqmayaan dadka Hinduuga ah ee dalkaasi u badan markii uu adkeysan waayeen ba hawshan soo shaabaxday dad badan ay ku dhiiran kari waayeen bay ku dhiiratay arrintan Muskan Khan marka waxyaabaha dunida soo jiitay gaar ahaan warbaahinta caalamka ee la yaab kale ayaa waxa ay tahay dhiiranaanta ay muujisay inantan Muskan Khan oo ah mid aan muslimiinta dalkaas looga baran sanadihii ugu dambeeyay cabsi ay ka qabaan in la waxyeeleeyo maadaama ay yihiin dad laga tira badan yahay marka loo eego Hinduuga oo aad uga badan muslimiinta guud ahaan dalka marka loo eego marka waxaan oran karnaa arrinta gabadhan waxay soo shaacbixisay banaankana u soo saartay arrimo fara badan oo markii hore duugnaa oo inta badan indhaha caalamku aynan qabanaynin ay soo shaac saartay banaankana u soo saartay baan dhihi karnaa arrintan waxay sidoo kale fariin cad u diraysaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyo kooxda canaasiirta ay hogaamiyo taasoo u sheegaysa ashunka adimidii muslimiinta Hindiya ay ku jirtay in hadda ka bacdi aynan macquul ahayn wax sii socon doonana aynan ahayn wax la isku xisaabtami doono la isaga daba imaan doonana ay tahay waxaana oran karnaa kelmadaha ay ku dhawaaqayso takbiirta inantan muslimada Muskan Khan waxay gilgishay qulubta dadka Hinduuga ah runtii markaad u fiirsato inantan qaabka ay markay meesha soo galayso dabcan meesha waxa ka socda mudaharaad ay qabanqaabiyeen dadka Hinduuga gaar ahaan ardaydu iyo macallimiintu ay qabanqaabiyeen kaasoo looga soo horjeedo xijaabka ay uga soo horjeedaan marka inantan dabcan waxay ku imaanaysaa mooto markii mootada saas u dhigataba hore ka soo dhaqaaqaysaa iyadoon yani gambasho lahayn agtooda markay marayso bay Allahu Akbar leedahay dabcan waxay cadaynaysaa waxa ay sheegayaan ku mudaharaadayaan qaabka ay iyadoo xaggeeda aaminsan tahay shucuurteeda ay muujinaysaa iyo islaamnimadeeda iyo muslimnimadeeda ay muujinaysaa maadaama ayagu ay muujiyeen tooda hinduunimadooda ay muujiyeen inta badanna ay dabcan luqaafadooda iyo lugooyada inta badan ay hinduuga muslimiinta u geystaan aysan ahayn wax la soo koobi karo laakiin inantani waxaan oran karnaa waxay waxba kama jiraan ka soo qaaday mudaharaadkoodii iyo yani waxay soo abaabuleen iyo iyagoo intaasoo qof ah oo dabcan boqolaal way gaarayaan ama kumanaan baa dhehe keligeed ay kasoo dhex muuqato iyadoo takbiir Allahu Akbar leh waxay noqotay arrin guud ahaan caalamka aad indhahooda u soo jiidatay kuna noqotay ayaga laftigoodii argagax iyo qaadan waa waxaynan horay u arki jirin dabcan marka taas ayaa waxaan oran karnaa waxa ay keentay in maamulka gobolka Karnataka inuu dib yani uu eegis ku sameeyo arrintan ay dawladdu soo saartay ama maamulku soo saaray in dib u eegis lagu sameeyo kana fariistaan marka ilaa iyo hadda warcad ma soo bixin oo rasmi ah laakiin waxaa la rajaynayaa in arrinkan ah in xijaabka totally la mamnuucay oo tuushinada ama iskoolaadka ama jaamacadaha ama kolleejyada gobolkaas laga mamnuucay in wax badan laga bedeli doono dadka muslimiinta ah dalkaas ku nool ay yihiin dad leh xuquuqdooda leh inkastoo dawladdu sheegto in dadkan muslimiinta ah aynan dulmanayn oo dad xuquuqdooda loo ogol yahay oo xuquuqdooda wadanka ku leh ay yihiin haddana kama dhammaato mar walba muslimiinta dalkaasi la soo bidixeeyo oo dabcan la dhibaateeyo mar la barakiciyo oo dhulkooda la yiraahdo dhulka ay degan yihiin dabcan dhul dawladeed bay degeen hanjabo oo la barakiciyo dhulkooda laga barakiciyo mar masaajidadooda yani la gubo oo aragteen yani waxyaabaha bilihii la soo dhaafay dalkaasi ka dhacay mar goobaha cibaadada la gubo mar xijaabka loo diido goobihii waxbarashada iyo in yani ardaydu ay xijaabka gabdhaha muslimiinta ay la soo galaan waxbarashooyinka kala duwan ee dalkaasi waa badan yihiin dhibaatooyinka
loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee dalkaasi dowladuna waxaan oran karnaa inta badan boqolkiiba 90 waa iska indha tirtaa caalamkana waxay tusisaa weji kale oo ah muslimiinta dalkaasi ku nool ay inta badan xuquuqdooda asaasiga ah helaan oo aysan ahayn dad yani la dulmiyo aynan ahayn waxaana markaad sii fiiriso 10 sano ugu dambeysay waxaad moodaa in islaam nacaybka ama islaamofobiyada ee dalka Hindiya uu aad u ziyaaday gaar ahaan inta xisbigan BJP ee midigta fog ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Narendra Modi uu xilka la wareegay ama xilka qabsaday ee 2014 iyo ilaa 2019 dib u doorashadiisa intaba waxaad moodaa in cadaadiska muslimiinta la saarayo uu aad u ziyaaday maalinba maalinta ka dambaysa uu soo ziyaaday waxaana oran karnaa ama xusid mudan in ololihii doorashada uu ku galay 2014 markii la dooranayay ra'iisul wasaarahan ay ahayd waxyaabaha uu doorashada ku soo galay ama ku soo baxayba ay kamid ahayd ballanqaadyadiisu muhiimadda iyo mudnaantaba la siin doono dadka Hinduuga ah ama sidoo hadalka isagoo u dhigay dadka dalkan u badan ama wadaniyiinta dalkan ee Hinduuga ah oo sidoo isagoo hadalka u dhigay in la siin doono mudnaanta iyo muhiimadda in la siin doono marka arrintani waxay daba joogtaa ballanqaadyadii iyo ololihii uu doorashada ku soo galayba ra'iisul wasaare Narendra Modi waxaad arkaysaa hablo xijaaban oo tuushinkii ama goobtii waxbarashada hortaagan oo loo diidayo inay gudaha u galaan dabcan ganjeelkii laga xiranayo ayaga oo kuwa gadaashooda ka yimid oo Hindu ah oo dabcan ama tintooda u sii deysan tahay ma garan karo diinta ay haystaan laakiin kuwa tima qaawan ee gadaashooda la soo deynayo oo la fasaxayo gabdhihii xijaabnaana dib loo celinayo ayaguna ay ku dhagan yihiin nin markaas hortaagan iyo askarta ay ku dhagan yihiin oo leeyihiin maxaad mustaqbalkeena yani u waxyeeleynaysaan maxaad yani dhaqankeena noogu diidaysaan iyo diinteena dhaqankeena iyo diinteena bedeli mayno iyo erayo kamid ah ay gabdhuhu ku dhawaaqayaan runtii waa arrimaha soo jiidashada leh bay kamid tahay baan oran karnaa sidoo kale inantan Muskan Khan mar ay la hadlaysay idaacadaha maxalliga ah ama idaacadaha ka jira gudaha Hindiya waxay muujisay dabcan shucuurteeda inantan waxay leedahay Muskan Khan diin waliba waxay leedahay xorriyadeeda ayay leedahay ayagu tooda ayay raaceen xorna u yihiin aniguna tayda ayaan raacay xorna Every religion has freedom. They are following their culture and I'm following mine. They should let us follow our culture and not raise obstacles for us. marka waa in qof waliba diintiisa lagu xurmeeya laguna tixgeliya bay leedahay inantan mar la wareysanayo idaacadaha maxalliga wareysanaya marka guud ahaan haddaan soo duuduubno ama soo gabagabayno muuqaalkeennan dalka Hindiya sida uu xorriyadda u qaatayba runtii way ka jireen waxyaabahan lagu dhibaataynayo dadka muslimiinta ah dalkaasi ku nool tira ahaan ma yara maanta markii dunida ahaan loo fiirsho ama wadamada adduunka wadamada ugu muslimiinta badan bay gelaysaa kaalimaha hore ka gelaysaa waliba dalka Hindiya laakiin caqabada meesha taagan baa waxay tahay muslimiinta tiro kastoo ay yihiin Hinduugi baa ka badan waxaa lagu qiyaasaa muslimiinta dalkaas ilaa 200 oo milyan baa lagu qiyaasaa waxaan oran karnaa dhowr dowladood oo East Africa hadii la isku soo daro way ka badan yihiin muslimiinta waxa ka badan ee Hindiya laakiin caqabada ah in mar walba ay ka sii badan yihiin Hinduuga ay ka sii badan yihiin muslimiinta ay ka sii badan yihiin bilihii la soo dhaafay bay ahayd ama dhowr bilood ka hor markii nin beeraley ah oo iska masaakiin ah oo beertiisa falalaya inta ciidamo u yimaadeen dabcan askar xabada la dhacayeen oo markuu dhulka ku dhacana ka bacdi aad arkayso nin filin qaada ah ama dabcan cameraman ah oo intuu ku ordo dabcan ku joogsanaya ku istaagaya odayo dhulka yaala oo dabcan xabadihii haleeleen isaguna ku sii istaagaya runtii arrintaas oo noqotay arrin aad looga argagaxo indhaha caalamkana aad soo jiidatay marka gabood fallada lagula kaco dadka muslimiinta ee dalkaas marka dhinacu yani waxa kuulo xoogaa soo ekaanayaan arrintii baarma ka dhacday ama Myanmar dalkan loo yaqaano ee muslimiinta aadka loogu waxyeeleeyay ee hogaamiyaha ka ahayd islaantii wadankaasi hogaaminaysa Aung San Suu Kyi marka wadankan Hindiya runtii gobodfalada muslimiinta loo geysto ma yara ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan inuu xafido ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qulubtooda isu soo dumo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xoogooda mid ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cizigooda iyo sharaftooda iyo qiimahooda iyo karaamadooda kor u qaado hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkeena waxaan naga codsi ah inaad subscribe garayso like saarto si share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan oo faa'iideystaan barnaamijyada aadka u qiimaha badan ee aan soo gelino inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono aniga walaalkii Saacid Xaaji Aadana iyo bahda Saacid Tube oo mar kale idin leh wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
और आखिर में मैं मुस्कान बहन को सलाम पेश करता हूँ।